lood oo ka damqanayo dhibaata kaga furnayd Cabdulmalik Xajaaj buu adeegsaday labada meeloodna ceeb baa ka raacday isna uu isku canaantay markii dambe meeli waxa weeye Makka al-Mukarrama magaalada Makka iyo Xijaas waxa ka madax ahaa asxaabigii Cabdullaahi ibn Zubayr ibn Awaam looranay Asmaa bintu Abi Bakar ay ayeeyada wahay Zubayr ibn Awaam uu dhalay macna Asmaa bintu Abi Bakar ba hooyadii ahayd Abu Bakar ba awoow ahaa baan u jeedaa nin qaali oo saxaabi oo mujaahid abu ahaa marka madax buu ka ahaa inta aan idhaahdo Xijaas iyo Makka iyo Madiina iyo inaha arrinkiisii markii uu Cabdulmalik ku yara kalgashay isna meel gooniya uu magacaawday Xajaaj buu adeegsaday Xajaajna reer Makana hilifuhu qaaday oo waa laayay Kacbadana qaybuu dumiyay Cabdullaahi ibn Zubayrna wuu dilay Makka albaabkeedana uu ka soo laalaadiyay meydkiisa hooyadii ina Abu Bakar Cabdullaahi dhashayna uu tagay oo ku tiiqtiiqsaday marka wuxuu yiri ka waran maxaan ku qabtaa hooye maxaan ku qabtaa buu isagoo ku jeestiyay anigu hooye kuuma hibayt laakiin ninka halka aad ka soo laalaadisay meydkiisan hooye wax kaasi wuxuu ahaabay dhulbiis buu ahaabay dhulbiis dalkiya dadkaanu ka qabanay adiga dhulbiis sabayt nabiga waxaan ka maqlay isagoo leh reer Thaqiif waxa ka soo bixi doona beenaale iyo mid mubiira oo waxalaaga beelaani waanu aragno ninka Mukhtaar la oran jiray buu ahaa ee nabinimada sheegtay aduguna kii dadka halaagaya dalka inaad tahay baan ku arka laakiinni mubiirul munaafiqiin mubiir iga soo qaad ku wax baabiya munaafiqiintan baabiya buu sida inaan kaago kale ninka isaga Xajaaj bin Yuusuf la yiraahdo arinta kale ee dibka ah ee uu geystay waa dhacdadan iyaduna aad ka waadkay dhacdadan imka aynu ka sheekaynay dhacla sahlan maaha dhacda uu ku dilay 130,000 oo qof oo muslimiina oo taabiciintii u badnaa 130,000 oo culimadii iyo madaxdii iyo acyaantii iyo mujaahidiintii u badnaa ayaa halka uu ku dilay waynu gali doonaa taa ninka saddexaad ee Xajaaj ay dagaalameen waxa weeye ninka la yiraahdo Cabdurrahmaan ibn Muhammad ibn al-Ash'af isaguna raggii Kuufa ku dhasho reer Kuufa ahaa halkaas uu ku koray reerkooduna xoog buu lahaa madaxdii reer Bani Umayya u shaqeynaysay buu ka mid noqday wuxuu ahaa dadkii soo baxay dagaalka ku soo baxay isaguna ahaa markii cadawga lala dagaalamayay raggii aad ka muuqday buu ahaa ibn Ash'af ninka la yiraahdo taariikhdiisa aynu ka sheekaynayna waqtiyada kamida ayaa markaa waxa adkaatay in la xoreeyo meeshan Hindiya iyo Pakistan iyo Iran dhinaceeda iyo Afghanistan iyo dhulkaas oo bilaadu Turki la oran jiray atraakt ayaa adkaatay inkii halka ka dagaalamayayna waa dileene mujaahidka ahaa ee colka madaxda ka ahaa Xajaaj baa markaa wuxuu doonay oo dhulka Ciraaq ka madax ahaa inuu adeegsado nin adag oo nimanka indhaha ka rida oo ka soo dhalaala dagaalkooda ninkan buu markaa u yeedhay la yiraahdo ibn al-Ash'af magaciisa wuxuu dadku iska yiraahdaan ibn al-Ash'afna waa la yiraahdaa Cabdurrahmaan ibn al-Ash'afna waa la yiraahdaa laakiin Muhammad baa ku dhex jira waa Cabdurrahmaan ibn Muhammad ibn al-Ash'af markaa Muhammad ka la iska dhaafaa Ash'af kaasoo awowgiisiina waxa la yiraahdaa waa raggii ku lug lahaa dilkii Uthmaan taana way sheegaan Uthmaan ibn Affan radiyallahu anhu Xajaaj markaa ninkii buu yeedhay wuxuu waxaan doonayaa inaad xorayso dhinaca iyada oo aad xagga la mari waay aad igaga filaato ibn al-Ash'af halku ka soo baxay isaguna salaanka uu ka fuulay waynu bilaabi doonaa halka weey
markii dambena arrinkiisu siduu ku dambeeyey iyaduna waynu arki doonaa. marka ibn ashcaf kaasina wuxuu caan ku ahaa nimanka dagaalama ee colka horkaca ee cadowga aad u jabiyo haanji oo gaaladii markaa la mari waayey aad buu qabsado waa xoreeyay. waaye inaha aan ku dhaaf xajaaj bin yuusuf iyo ninka cabdiraxmaan la yidhaha ibn ashcaf taariikhdooda. xaafid ibnu kathiir ayaynu ka soo qaadan doonaa taariikhda siduu qoray oo taariikhda kitaabka weyne taariikhda laha qoray isagu markaa raximahullah. waxaa aad looga soo cawday buuri ninka la yidhaha rutbiil alkaafir meliku turk, ninkii dhulka aynu sheegnay bariga ka madaxda ahaa ayaa aad looga soo qayliyey oo la yidhi ninkaa waa la mari la'yahay. xajaaj markaa wuxuu doonay ninkaa nin ka caabiya inuu u xulo. wuxuu u yeedhay markaa cabdiraxmaan si uu hoggaamiyo colka. markaa cabdiraxmaan wuu imanaya xajaaj binu yuusuf waxaa la joogay imaamka la odhan jiray caamir ashacbi oo isagana taariikhdiisa aynu wax ka xusi doonaa la fadhiyey. xajaaj ninkan uu leeyahay colka ha hoggaamiye ibnul ashcaf markuu halkaa ka soo baxay ayaa wuxuu la hadlay shacbi, imaamu shacbi oo la fadhiya ayuu xajaaj la hadloo wuxuu idhi undur ilaa mishyatihi wallaahi laqad hamamtu an adriba cunuqahu. ninkaas soo socda inuu yeedhay maaragtaa shacbiyow ibnu ashcaf la yidhaahdo, bal kibirkiisa eeg siduu u soo socdo, walle waxaan ku fikiray inaan qoorta ka jaro. wayse seegan yihin hoosta waa ka cod, laakiin inuu ku guuraa buu doonayaa, inuu ku guuro oo cadowga uu ku difaacaa buu doonayaa. imaamu shacbi raximahullah isagoo aan dadka isku diraynin laakiin dadka u naseexaynaya ayaa markii dambe wuxuu la hadlay ninkan xajaaj uu yeedhay la yidhaha cabdiraxmaan ibnu ashcaf. markaasaa wuxuu idhi wareedha markii aan la joogay ninkani sidaa adag buu kuu xantay, wuu kugu soo maqan yahe ogow. ninkaasi xajaaj la yidhaahda wuu ku qaniinsan yahay oo wuu ila kaa xantay. markaa wuu naseexaynayaa cidlayuu ka helin buu isleeyay. isagii ibnul ashcafna wuu hadloo wuxuu idhi wa ana wallaahi la ajhadanna an uziilah can sultaanihi in taala bii albaqaa. walle anna waan dhaartaye haddii cimrigaygu sii jiro meesha waan ka dhaqaajin doonaa. waa isu dhaarsanay isagu masaasuu igu yidhi anaaba riman buui, aniga laftayda ayaa riman, mar un waan ku quusan doonaa buui. waa laba ninoo isu shaqaynayo haddana hoosta isaga hanjabaya. marka horeba sheekadooda caynkaasi ahay oo kibir baa la iskala horyimi. ibnu ashcaf colkii buu hoggaamiyey xaggaa iyo dhulkaa aynu sheegayno ee sindi iyo binjaab iyo dhulkaa shishe afghanistaan iyo eeraan iyo baakistaan iyo dhulkaa ayuu u kaxeeyey colkii ilaa hindiya. wuxuu furay magaalooyin badan, tan markuu xoreeyo tu kaluu xoreeya gaaladii baa guura uu addoonsaday, khadiyaan bay ka joogsadeen, dhul dhan buu sii xoreeyo aad u fara badan. markii uu fogaaday ayaa wuxuu la hadlay colkiioo waxa uu yidhi sannadkan soo socda col fara badan baa la socda, waynu nasanaynaa, dagaalkana waynu yara joojinaynaa, colkuna wuu xoogaysanayaa, magaalooyinkan aynu xoraynayna dee maamul baynu u samaynaynaa, waynu nadaaminaynaa. farsamuu wataa markaa. xajaaj binu yuusuf baa maqlay ninkii colkii wuu joojiyey, colkii uu gaalada isna wuxuuba lahaa ha ku dhinto balaayadu oo halkaa ha kaaga dhinto. colkii wuu joojiyey baa lagu yidhi. waraaq adag buu u soo qoray uu ku caayayo ku canaananayo oo uu leeyahy waan maqlay inaad colkii joojisood igu madaxadagtay, dagaalka sii wad. isna markaasuu halkaa ku joojiyoo waabuu fallaagoobay, caasinimuu bilaabay. colkiina wuu ururiyey uu la socdayoo wuxuu idhi waryaadhaheen ninkii caynkaasuu ina leeyahy, ummaddaa dhulkaasuun sii dhex galo halkaa ku madha buu leeyahay, dee maxay idinla tahay? ninka anigu kama amar qaadanaya ma igu raacsantii? kama amar qaadanayno annaguna xajaaj waannu naqaanaa. waxa istaagay ninkan la yidhaahdo cabduraxmaan
aabbihi oo Muhammad ibn Ash'af la yiraahdo colka la socda kan qaa'idu jeeshka ah ee Xajaaj dagaalami doona aabbihi baa meesha maraya odaygiina wuxuu ahaa oday khatiiba oo mufawwaha oo balaaya ila waxa la masku masun buu dhalaa abeesaduna abeesun bay dhashaa ninkanba kulaylkan odayga ku dhalo meesha maraya waa gabaya Xajaaj buu gabay u turiya oo ku hurgufaa oo inankiisu u heelinaya odaygii baa isna meeshii ka hadlayo markii la caasi garoobay wuxuu yiri ninka la yiraahdo Xajaaj wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii hadlay yiri ihmil 'abdaka 'ala al-faras fa in halaka halaka wa in najaa falaka waa sidii mahmahadii carbeed oranaysay adoonkaaga faraska ku eriyo hadduu dhintana wuu ku dhaafay hadduu noolaadana aduu ku shaqayso sidaas uu ka dhigay wuxuu doonayaa haddii aynu halaagnana haddaynu halaagsanana inuu inaga nasto haddaynu guulaysanana guusheena inuu isagu sheegto awdhaa dhulka anaa xoreeyay sidaasaa uu arrinkii u waday markaa waxay isla garteen in la caasiyo ninkii la odhan jiray Xajaaj saacadda laga bilaabo ninkii gobolkan Ciraaq haystay ama dhulka Ciraaq iyo ilaa Iiraan ee Abdul Malik ibn Marwan madaxweynaha wakiilka uga ahaa kama amar qaadanna bay dhayn la inaguma hadleeyo ikhla'u adu wallahi al-Xajaaj wa baayi'u li amirikum Abdurrahman ibn Ash'af sidaas markaa lagu dhawaaqo waxa la saacadda laga bilaabo ninkan baynu heshiis la galay ninkana madaxinoo ah iska tuur Xajaaj ma tuurteen tuurnayday Xajaaj halkii faraha badnaa oo 150 kun ku dhow 150 kun oo ciidana taas la isla qaat dadkuna Xajaajkan nin dib badan oo shariira buu haayo waxa uu sahlay inay saacidaan ninkan Xajaaj bala nacay laakiin Xajaaj tuurnay un baa la yiri lama soo qaadin markaa madaxweynihii muslimiinta xukumayay Abdul Malik in isaga lagu caasi garoobay taa la islaama soo qaadin ee waa laga aamus ninkii isaga ahaa marka wuxuu yidhi kol haddaynu ninkii ku caasi garooni Xajaaj wayna soo daba galaya waynagu soo duulaya dagaalkii gaalada halka inaga joojiya isagii aanu jeesan hadaba xaqiisii baynu noqonaynaa iyo Ciraaq baynu dib ugu noqonaynaa laakiin de ninkii hore uma sii socon karno horta aan iska xoreyno sidii baa markaa lagu heshiiyo colkii dib uu soo ruqaansaday inta xaqii gaalada laga soo noqday ayaa xaqii dambe loo soo ruqaansaday ee Basra iyo Baghdad iyo Kuufa iyo dhulkii baa dib lagu soo noqday markay ku soo dhawaadeen dhulka aynu sheegaynay imaka Xajaajna ku nool yahay ayaa la wada hadlo waxa la yiri waardeen ninkan nin baa madax Abdul Malik la yiraahdo meesha madaxweyne ka ah ninkan aanay nagu hayo inoo keenay miyay suuragal tahay de baqtigiya fuudkiisa inaynu kala qaadno oo inaana baqtiguna waa xaraan fuudkiisuna waa xalaal ma kala qaadi karayne kabiye waxeeda waa la isla tuuraaye haddaynu Xajaaj tuurnay kaw madaxda ee Abdul Malikna tuura ku caasi garooba ma sidaasaynu yeelna alla isla qayli waanu idinku raacsanahay daali baycadii ba haddana loo jiriidiyay mar labaado meesha baada ka madaxweynaha baalay Abdurrahmaanow ina Ash'afow adaa meesha ka ka Abdul Malik oo ka Xajaaja oo ka madaxweynaha waa ku ka markaa fabaayuhu ala kitaabillahi wa sunnati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa khal'i aymati dhalalati wa jihad almulhidin kitaabka ilaahay baan kugula bayca kugula galay sunnada rasuulkaanu kugula galay iyo inaan la dagaalano madaxda halowga iyo halaaga ee umada halaagaya arintu markii hore Xajaaj bay taagnay Xajaaj markuu warkii maqlay la mar walba warkii baa la kala qaadanayaa wuxuu u diray fariin madaxweynihii muslimiinta ee markaa Abdul Malik ayuu fariin u diray markaa wuxuu yiri arrinka halkaas u maray aniga ay taagnay laakiin adeeg soo gaadhay hadda adaa lagu soo gaadhay adeegina waa lagu tuuray waa lagu caasi garoobay
dawlad baa meeshii laga dhisay dee la soco fanzacaja alkhaliifatu wahtamma marka ninkii cabdilmalik la odhan jiray way ku ciirtay talaa ku ciirtay markii la yidhi ummaddii halkaa joogtee faraha badnayd oo culimo leh oo quraa'a leh oo cid walba leh waa laga caasigarooba adig iyo xajaajba waa la tuuray arrinkii waa ku adkaaday wasaca annaasixuuna walmuslixuuna fii dar'i alfitna cid waloo dhaqdhaqaaqi karaysayba waxay markaa u dhaqdhaqaaqday in fitnada la damiyo oo dee waa la garanaya ibnu ashcafna waa nin dagaalyahana xajaajna waa dagaalyahan dadka la socdana waa muslimiintii oo xulkii ahoo qiimo badan baa la kala socda waxay isku dilayaan inuu muslimkii yahay baa maaragtay la garanaya horena muslim isdila waa loo soo maray wakhtigii cali iyo mucaawiya radia allaahu canhuma dhibka ka dhacay baa la garanaya marka cid waliba way suxulduubtayoo way oroday bal si dagaalkaa loo joojiyo laakiin waxaa la yidhaahdaa miidaame dhagama leh hadduu malag dhawaaqaayo miidaamuhu waa qofka sii dhimanaya miidaamuhu qofka sii dhimanaya naftu hayso ee geeri halkan ugu qoran dhag kuu dhigi maayo haddii malaguu gacan haadin ayuu yeedhaya malakulmowdkiibaa u yeedhaya ku dhagaysan maayo marka in alla inta meeshan ku dhimanaysaa cid ma maqlayso ninkii la odhan jiray ibnu ashcaf ragga la hadlay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray muhallab ibnu abi sufra muhallabkaasina wuxuu ahaa raggii muxanakiinta ahaa ee dagaalka aadka u yaqaanay ee lodkiisanoo kale ahaa ee madaxda reer bani umaye ka mid ahaa ee cadowga xorayn jiray waraaq buu u qoray wuxuu leeyahay war madaxdaha caasiin war way ka dariye ka rayn maysida ka daah wuxuu leeyahay qad wadacta rijlaka fii rikaabin tawiil wallaahi lugta waxaad saarta meel aad u fogoo kula fogaan karta ibqi calaa ummati muxamadin allaaha allaaha waar ummadda nebi maxamed ilaahay kaga cabso naftaada ha halaagin dhiigga ha daadinin waljamaacata laa tufariqa walbaycata falaa tankudha baycad ku jirtaa oo madaxweynead heshiis la gasha ha jabinin muslimka dhiiggiisana ha daadinin ninkaasi aad buu ula hadlay waraaq dheer buu u qoray waaya arrinkii markaa wuxuu istaagay qir iyo qir dee cabdulmalikna muu dee ninkii isaga ahaa wuxuu doonaya uma yeelin ninkiina wuu tanaasuli waayey waxaa markaa dhacday cabdulmalik ibnu marwaan oo madaxweyniya oo markaa dee xaggaa shaam buu xaruntu waa shaam dimashq iyo dhulkaa wey reer bani umaye dowladdii xaggaasa xarun u ah wuxuu markaa yidhi miyay soo noqon waayeen haa xajaaj buu markaa u soo diyaariyey col culus oo ciraaq ugu yimaada oo dee waxaa markaa macruufa in qofka madaxweyne loo ictiraafsan yahay ee muslimku baycada la galay dee waa cabdulmalik un wey haba qaldanaado waxaa dulmiyayo laakiin ninka rasmiyan dee meeshii imaka haystaa waa isaga un colkaasuu soo diyaariyey col aad u fara badan ayuu soo diyaariyey ibnul ashcafna isaguna abaabul aad u badan buu sameeyeyoo waxa uu isaguna isu diyaariyey inuu col urursado col badan buu isaguna soo urursaday wuxuu isu keenay markaa 33,000 faras wa 120,000 raajil gaadiid teknika ahoo 30,000 oo nin oo fardafuula iyo 120,000 oo nin oo lugaynaya 150,000 oo qof oo intaasina lugaynaysa efenterit intaasina gaadiid fuushan tahay ayuu soo diyaarsaday rag baa la taliyey waxay yidhaahdeen war waxani waa dagaal in mabda' lagu dagaalamo wey sidaa daraaddeed ninkanna waa xajaaj ninkan kaa hor imanaya nin sahlan ma aha waxaan kugula talinaynaa culimmada iyo quraa'ada iyo nimanka fiqiga yaqaana iyo nimanka cibaadaysta iyo culimmada doon soo ururi culimmada ha iskaa garab taagaan maalintaasuu dadku ku raacaya mar alla marka la arko ibnu ashcaf in culimmadii waddanku ku raacday ciraaq khuraasaan dhulkaasoo dhan ayaa lagu raaci doonaa sidii buu yeelay
culimadii buu nin ugu tegay ragga aynu sheegi doonno magacyadooda ayuu nin ugu tegay raggii wadanka culimada ka ahaa wuxuu leeyahay Xajaaj bin Yuusuf inuu dhulbiis yahay mufsida oo dal iyo diin iyo dadba kharibay sheekh hebel miyaad ka shakisan ma kama shakisan maanta waa la fujinayaa ninkii udubada loo saaraya waa la tuuraya waa la fujinayaa miyaad ka hadhay mise waad nala hinjin diinta Ilaahay baa loo nusraynay Xajaaj baa daaqada laga tuurayaa bal ma ayna mariya waayo hadaba dadka soo wacdi ceel iyo cala dadku qadiyaan baa laga taagan kolkaasaan nin waliba dadkii wacdiyay hadallada inuu sheegi doonaa kolba nin ka hadlay war ninka hal la qabto war Xajaaj baa maanta loo baxay war ninka hal la raaco col aad u fara badan buu sidaa ku soo diyaarsaday iyadoo culimadu ay la socda aad u fara badan cidba ka harin الحافظ ابن كثير وحي له وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك أرنكي وسيع صلاضي رقي راعي ابن الأشعث آد بو بطي وتفرقت الكلمة جدا كلمة دي مسلمين تنوي قيب سنتي وعظم الخطب وتسع الخرق بلادنا ويسيوينات كلاكعين وبطي لبادي على المركعة ويس هلان يوم الجماجم أما ما لا يرى هذا دير الجماجم أي ما أيا لوها لا يسكوها للوكاس مركعة كم بذا عراق أيا لا يسكوها لي رجع مركعة قوبتا إيا ذا أبابرك حق ابن أشعث السعودي وحكم ذها إمامكي وينا لورن شري عامر ابن شرحبيل الشعبي رحمه الله إمام كاسا كمدها ودمر كل حجاج با شقه laga qabanaya isna taageeray ninkan kacdoonka sameeyay ee falaagoobay Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah markuu Xajaaj ninka tacliiqinayo imaamka Shacbi waxa uu leeyahay saddexba ummadda nabiga ugu cilmi badnaa ibn Abbas waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa Shacbina waqtigiisii isaga ugu cilmi badnaa وسيدو لا يسوي واي نكالنا وشاي wuxuu markaa ahaa asxaabtoo jooga ayuu fatwada bixin jiray nin kale oo salafkiina wuxuu leeyahay 500 asxaabi baan la kulmo maan arag ninka shacbiga taabiciga ninka cilmi badan maan arag wuxuu ahaa nin jimir yar ama aan kuusnayn nin yaroo dhuuban buu ahaa gaaban markaa waxaa la odhan jiray dee aqoontaaduna way badantay itaalkaaguna wuu yar yahay waxaanoo cilmiga halkeed ku sidaa waxa la iga raacay buuhi mataan baan ahaa mataan markaa riximka hooyo ayaa aniga iyo mataankii kale nagu qaybsamay awooddii labadayadaasaa kala qaybsannay ninkaa isagaa waxaa la weydiiyey imaamu Shacbi raximahullah cilmiga badan maxaad ku heshay wuxuu waxaan ku helay 3 arrimood bi'uluwi al-himma hamadaydoo sarraysay wa sabr al-hamama iyo xamaamka shimbirta la yiraahdo sabirkeedoo kalena waan lahaa wa bukuur al-ghurab kalahaada tukaho kalena waan lahaa shimbirkan tukaha Soomaaliya subaxdii inagu soo kalahaya oo ka meeshan uu ka qaylinaya waligayna waan ka lihi jiray waligayna waan soo sabrayay waligayna hankaygu uu sareeyo ummadda cilmigeeda inaan ururiyabaan isku day jiray inkii caynka aan aad u cibaado badanna imaam Shacbi wuxuu kamid yahay aimada waaweyn marka fiqiga iyo xadiis muhaddith faqih ayuha mufassir ragii hadlay buu kamid ahaa waxa uu qaatiluhum ala jawrihim kula dagaalama reer bani umayya kardaradooda wastiglaalihim ad-du'afa iyo masaakiinta ay dulmiyeen ay dhibeen wa imaatatihim as-salaah iyo salaadii ay naga dileen salaadii iyadana way naga dileen oo waqtigeedii bay ka saareen oo waqtigii nabiga uu dadka tukan jiray ka oo jamciiba wala tukan jiray jamc way ku tukan jireen laakiin mararka qaar kood bay salaadu dadka ka khalkhali jirtay Waliid ibn Abdul Malik buu ahaan filaya isagoo cabsan
reer bani umayya aanu ahaa deena cabdimalik buu ahaa isagoo cabsan buu salaadii subax dadka tukiyey 4 ragcadood buu ka dhigay markaasuu ka soo horjeedsado markaasaa wuxuu yidhi hal asiidukum miyaan idiin kordhiyaa markaasay yidhahan walaa zilnaa fii ziyaada marka horaabay kororsanaydba marka horaad 4 ka dhigtee miyaad ku sii wadi culimmada iyo asxaabta iyo way iskala tukan jireen goonina way u tukan jireen waxay odhan jireen fitnadooda dooni mayna in la dagaalanee waqti salaada waqtigeedana aynu tukanno jamacoodana aynu la tukanno si aan la inoo odhanin ummaddii bay kala kiciyeen asxaab saasay ula dhaqmi jireen marka ninkaasi hadalkaas u jeediyey dagaalkii markuu sidaa ku sii bilaabmay xabaddu way socoto mushkiladan ilaa 4 sano ay socotay laakiin waxay sii adkaatay 103 maalmood 103 maalmood baan meel kale loo kala kicin waa 3 bilood iyo badh intaasay xabaddu socotay gawda un la isku hayay waxa la galay 4 dagaal 103 maalmood waa niman dagaal cuna oo intaa cadowgii la dagaalamaya mujaahidiintii baa ishelay 103 ka dagaal 3 bilood iyo badhka dhacay 3 waxa lagu jabiyay xajaaj iyo colkiisa hal marna isaga wax jabiyay waa markii la kala food qaaday dhamaatayba sheekadu ninkaas sabirkiisa 3 jeer baa la soo jabiyay 3 bilood iyo badhka muu qoosanin oo muu tegin markii ugu dambeeyay ayaa uu jabiyay colkii markiina uu baabiyey waxba kama reebinba labada qolo way kala duwanaayeen qoladan ibn ash'ath uu hogaaminayaa waxay ka agdhow yihiin dawaa Ciraaq oo reer Ciraaq waxa ay ka agdhow yihiin dadkoodii iyo deegaamadoodii iyo dhaqaalahoodii qoladan reer Shaamna halkay ka yimaadeen ninka Suuriya ka yimid Ciraaq ka dagaalamaya maxaad u malaynaysaa waxa weeye intee oo masaafada buu soo jaray taa kulayntiiba adag dhaqaalihii baa ku yar marka colkan xajaaj la socda gaajadii baa ku badatay hubkii baa ka yaraaday dhaawicii baa meelay geeyaan ku adkaatay duruuftii baa jiq ah marka qoladan ibn ash'ath la socotaa waxay istaawinayaan ama isu aaminsan yihiin oo u dagaalka u joojin waayeen arnimanku waa niman meel dheer ka yimid dhaqsayn u gumaadaynaaye ha joojinina saasay isku qancinayaan dawlad baa ka dambaysa ma laha oo abdoo qalab xisaab abdoo qalid al xisaab baa dhacda marar badan dadku had iyo jeer markay isqancinayaan xisaabta ka xumaata markii la isbari waayay madaxweynihii muslimiinta Abdul Malik ayaa qoraal soo sameeyay cidna uu soo diray inamadiisii buu soo diray wuxuu nimanka ibn ash'ath iyo culimada faraha badan iyo ragga quraanka akhriya nimanka quraanka akhriyo qura 10,000 ah oo meesha ka dagaalamaya wixii aynu qaarinaqaanay intooda in badan oo kamid ah dagaalkaasi ku jiraan waa xajaaj caladiisii baa u geysay sabirkii baa dadka ka soo madhay uu soo diray dadkaasoo wuxuu yidhi waxa u sheegtaan ninka ibn ash'ath la yidhaahdo inuu xabadda joojiyo isagoo cidda la socota xajaaj binu yuusufna waan ka casilayaa isaguna meeshuu doonaya ninkaasi madaxa ka noqdo dagaalka ummadda laga joojiyo markii warkaasi soo gaadhay ibn ash'ath uu yara hungurooday hunguri baa yara galay ilaa isaga qudhiis madaxtinimuu doonayaa markaa wuxuu war ma ka yeeshaa codsiga laakiin raggiisii buu la shirayo wuxuu war maxay idin la tahay ninkii caynkaas u soo jeediya xajaajkii xumaana waan eriyaya adigana madax baan ka dhigayaa dadkana masaariiftii u socotay oo dhan baan u daynayaa marka qof wal oo qaariya iyo shaqaalihiisaba mushahar baa loo qoray qof wal oo culimada kamida mushahar buu lahaan jiray oo la siin jiray bayt baanka muslimiinta laga siin jiray wixii uu xajaaj kala tuurayna waan soo celinayaa culimadii quraadii mushaharkoodii dhaqaalahoodii ha wada qaatay ninkan colka hogaaminayowna meesha doonaysa wadanka madax ka noqo xajaajna waan eriyaa warintaas ma idin qancisaa warintaas uu soo jeediyay ka warrama waa la qayliyay hadiya jeer hadaad dad cabayso way adkaanaysaa sidhinkooda sidaad u dabciso ilaa intay qarxayaan
balaayo aanad dejin karaynin lama istaaro oo imika shayga aynu aad ugu faraxnay markii hore rabiic al-carabi loodhan jiray gugii carabta kacdoonnadii ka dhacay 5 dawladooda muslimiinta ka mid ah maanta mid quro lagu guulaystay ma jiro laakiin waxaynu filaynay dictatorradii dadka cirbaha soo cunay ee muslimka soo laayay haddii maanta ashacbu yuriid la yidhi isqaata nidaam oo shacabkii israacay inay ka raynaysaa baynu moodayn laakiin yuhuudi iyo nasaarun baa sidaa u dhex cararayoo isteerinkii inagu maynaa leexin karin iyagaa leexiyey markaa bal iminka liibiya halkay ku dambaysay liibiya way ka dartay oo shidaalkeedii gaalunbaa iska qaadata maanta shidaalka adduunyada u wanaagsan fawdadaasu iskaga jirtaa shidaalkunbay dhuraan baddaa yurub baa laga dhoofiyaa meeshii la odhan jiray suuriya khalaas quwadii waaweynaabaa kala goostay laakaan ninkiina lagu hayo muslim sunnigii unbaa waddankii ka guuray baasaboorradii iyo jinsiyaddii waddankana shiica la siiyey shiica la wareegtay shiicadoo 20 ahayd baa la wareegtay 80kii sunniga ahaana yurub iyo kanada loo saaray yaman halkay ku dambaysay waa waddanka adduunyada u gaajo badan maanta ee u majaaco badan sii baaba'aya meeshii la odhan jiray masar yuhuudda ka markhaati kaco waxay dhahaan taariikhdayada namuu soo marin ninkaa nooga wanaagsan ninkaa nin nooga fiican oo nooga adeega badan nama soo marin bay dhahaan xaggay ku dambaysay meeshii la odhan jiray tuunus waxay dadku moodayaan inay intifaadadeeda ama kacdoonkii guulaystay waa guul daraystay dadkii islaamiyiinta ahaa markay arkeen kuwii masar sida loo xidhxidhay way tanaasuleen shareecada inagu dhaqadiiba way ka tanaasuleenba way bakaylow burka hoosta ka gal way gabbadeen ka gabba baydhan saasa akhwaan muslimiinkii masar loo galay inana waa la inagu soo socda war xukunka naga hooya mashruucii islaamiga ahaaba way ka tanaasuleen shareecada lagu dhaqmo maalin dhaweyd baynu arkaynay iyadoo ka madaxweynaha uu arkayuu leeyahay hadlayuu leeyahay annaga shareeca nooma taalo dawladayada diinta waa in laga ilaaliyaa marka wixii marka aad kiciso aad istaadhashay aanad kontrooli karaynin meel daran buu ka dhici way ka sii dari marka waa in la eegaa waxyaabaa laga faa'iiday waynu arki doonaa ninkan isagiihi rag dadkii uu hor kacayay wuxuu sheeg buu islo isagaaba lagu kacaya waxa lagu yidhi in badan baad soo wadoodna soo hogaaminaysa madaxweynaha baanu kaa dhignay xajaaj iyo cabdulmalikba waanu kaa tuurnay xaggee lagaa haystaa yaanaad saaminsanayn ma iminkaa doonaysaa kuwa inaad dabadhilif u noqoto markaa waaba lagu dili buu isiri oo ku kiciya buuhi waa yahay dagaalkii waa la isku waday 84 dagaal markay dhaceen ummad aad u fara badanina dhimatay ninkii xajaaj wuu fikiro dadkiisii buu dib ula tashaday oo kaartooyinkii buu bedelay markaa wuxuu yidhi nimankan xaggaynu ka mari laana waxa la yahay colba hoosta ugu jira aayatulayaala oo soo mara waxadinayo qalbiga colka waa quraa'ada baa lagu yidhi nimanka qur-aanka yaqaana ee cilmiga yaqaana ee fuqahada ah ee dadka ruuxda macnaha waa dadka ruuxdooda hogaaminaya nimankaasi qaybtaasay ka dagaalamaan colka dhinacaasay ka dagaalamayaan nimanka hal ataago sidii buu yeelay col gaar ahoo garab gaar ah guutooyin gaara buu u sameeyey dadkii culimmada ahaa iyo quraa'ada ahaa oo iminka magacyadooda halkan aynaan ku soo koobi karayna ragga caankee la wada yaqaano ka mida kuwii baa markaas si gaara loogu duulay gawo baa laga dhigay intoodii badnayd maalintaasuu jebiyey xajaaj binu yuusuf colkii uu hogaaminayey cabduraxmaan ibnu muxamed ibnu ashcaf maalintaasuu 80 taariikhda taqriiban 83 meelahaasay ahayd colkaas maalintaasuu jebiyey ninkii la odhan jiray ibnu ashcaf fadhi uma yaallo tiro kooban buu kaxaystay uu fakaday uu firdhaday wuxuu u galay ninkii ka madaxda ahaa gaaladii lala dagaalamayay ee waqooyi bari ninkii uu la dagaalamayay laftiisa ayuu u galay ee uu jebiyey boqolaalka magaalo ka qabsaday markaasaa wuxuu idhi waa ikan aniga iyo tiimkan ila socda sodomeeyo ninoo xul ah
ayaa la socda dee magan baanu kuuna isaguna gaalkuna muslim kala jaba wuu jecel yahay wuxuu yidhi ninkan khadiija baabaad ka joogtay oo dhib buu kuu geystay marka hadduu maanta kuu soo galayba dee ku karbaash oo ku garaac kuwa isaga soo diraya kolkii hore ee xajaaj iyo cabdulmalik iyo soo dhowow buu idhi oo iska fadhiiso ninkii xajaaj la odhan jiray intaynaan horta siduu ku dambeeyey ibnu ashcafkaasi intaynaan gaadhin dee ninkii colka madaxda ka ahaa kolkuu fakaday xajaaj dadkii cidlow ka helay iyagoo raaba ah waa ragguu xukumi jiro u yaqaana dadkiibuu bililiqaystay wuxuu ka dhigay wuxoodiina qaniimad buu u qaatay wixii helana wuu dilay markaa raggii uu yaqaanay buu mid u qabtay oo raggu soo qabtay waxaa ka mid ahaa imaamka aynu taariikhdiisa soo sheegnay ee caamir ashacbi alimaamu thiqa alfaqiihu almuxadith almufasir imaamkaasaa markiina colka abaabulayay ayuu soo qabtay waana is yaqaaneenoo dee raggii uu biilka siin jiray la joogayay buu ka mid ahaa markaa wuxuu go'aansaday shacbi inuu qaladkiisa iska qaato ayuu go'aansaday xajaaj buu soo galay oo u yeedho dhinka dee uu soo qabto waa la hor keenay markaasuu salaamo wuxuu yidhi isagaa shacbi ka sheekaynaya wuxuu yidhi fasallamtu calayhi bilimra uma qultu waan salaamo waxaan ku idhayaa taliye ama dee amiir baa lagu magacaabi jiray amiir dee waan ku salaamay waxaan kuu sheegayaa anigu wixii aan galay diidina maayo dafirina maayo waan ka cudur daaranayaa gef buu ahaa gef baanu ku dhacnay gefkaa waan ku qanacsanahay inuu maaragtay gef ahaa waanaan ka noqday arrintaa waanaan ka noqday dee ilaahayna guushii waa naga kaasii maantana go'aanku aduu kuu yaallaa haddaadna cafiyaysa iyo haddaadna ciqaabaysaba ilaahay baa awoodda iskale laakiin dee annagu gefkaa ku dhacna xajaaj baa markaa wuxuu yidhi markuu arkay inuu iska qirsan yahay gefkii oo shacbi uu ka garaabay dagaalkaas inuu ile dagaalku muslimkii baa la kala jebiyey muslimkii baa la kala jebiyo nidaamkii islaamku u dhigay ee beecada iyo dee tartiibtii dee waa nin caalimee uu garanaya waanu qaldanay buu dee cadhaana qaaday cadhadii aanu adiga kugula dhacnaana qaaday laakiin arrintu gef baa ahayd markuu arkay inuu ictiraaf sameeyba xajaaj baa la hadlay ninkii sheekh ahaa wuxuu ku yidhi adigu waxaad ka wanaagsan tahay qaar badan oo seeftoodu dhiiggayagii uu ka dhibqayo oo been noo sheegaya oo odhanaya anugu kumaan jirin anugu halkaasaan iska fadhiyay anugu kitaab baan akhriyayay kuwaasaad ka fiicantay buui runtaad iska sheegtaa adugu iminkana waxaan kuu sheegayaa buui aamin baad ku dili mayno dadkaan dilaya kugu dari maayo waan iska kaa daayay laakiin waxaan ku leeyahay waan ku waraystee yaa shacb kayfa wajadta annaasa bacdanaa bal markii hore waa inagii wada joognee intii aynu kala maqnayna nala dagaalamayseen nimankii aad raacda ee aanu kala tuurnay bal ka warran sidee xaalkoodu ahaa shacbi baa markaa ka warrama waxay idhaheen wallaahi soo jeedna wuuna dilay waxa soo jeed kale dee niman jabhada baanu ahaynoo firdhala buur iyo bannaan walbana orod baanu ku dhaafay cabsiduna naguma yarayn wafaqadnaa saalix alikhwaan rag badan oo aanu saaxiib ahayna waanu weynay walam ajid min alamiiri khalafan adigana wax ku dhaambaba maanaan aragba xajaaj baa markaa wuxuu uhi insarif yaa shacb fansarafa aaminan shacbi halkaasuu iskaga daayay waxaa kutubta taariikhdu ay tilmaamaysaa dadka xajaaj la hor keenay inay dil uu u geysto garbaduub u dilay inay gaadhayeen 100 ilaa 130 kun oo qof oo muslimiintii ah oo culimo iyo cuqaalba leh iyo niman dagaalamay dad muslimiin u leh marka isagu waxay ahayd sida sharcigu wuxuu ahaa ilaa waa daalin oo uu gafayaa kacdoonkii haddii la kala tuuray in dadkan aan la dabagelin kuwada firdhada nimanka buqaada la yidhaahdo mar haddii awooddooda la jabiyo
in la xidhxidho iyo in hubka laga qaado uun mooyaane inaan dee gawda laga saarin been ilaa qofka awooddiisu in la jabiyo oo dowladda islaamka laga badbaadiyo mooyaane in isagii la baabi'iyo ujeeddadu ma ahayn xoolihiidana waa xaaraana buqaadda lama qaniimaysan karo ka dhaawaca aan lama dili karo ka firdhada waa la iska dayn wixii kumuu dhaqmine ka faa'iidee buu isloo 100 kun buu garbaduubu dilay ilaa 160 kun oo qof ayuu iskaba raaciyey raggu dilay waxaa ka mid ahaa Muhammad ibnu Sacd ibn Abi Waqaas mujaahidkii weynaa raggii jannada loogu bushaareynayay min ka mida inankiisii Sacad raggu markaa taariikhda muujiyey waxaa ka mid ahaa Saciid ibnu Jubayr taabicigii jaliilka ahaa taabiciya buu ahaa waxaa mucallin u ahaa Cabdullaahi ibnu Cabbaas Cabdullaahi ibnu Cumar iyo Caaisha dadkii uu ka qaadan jiray cilmiga ayay ahaayeen qarnigaasunbu isaguna ahaa nin fiqi badan oo cilmiga xadiidkana yaqaana tafsiirkana aad u yaqaano ahaa ibnu Cabbaas cilmigiisa raggii ka qaatay buu ahaa Saciid ibnu Jubayr markaasuu ibnu Cabbaas ku yidhi dadka waxbar haata oo ma adigoo joogaan ummadda waxbaraa buuri ilaahay fadligiisa miyaanay hayn buuri haddaad saxan tahayna inaan ku saxo oon ku akido haddaad khaldantana aan ku toosiyo taasuun baan kuula taaganahaye cilmigii aan aqaanay waad baratay dhaqaaji ninkaa isaga ahay Saciid ibnu Jubayr waxaa oo markii xajaaju dadkii colkii ka guulaystay raggii cararay buu ahaa kolba meel buu cararay wuxuu laakiin aad u jeclaa xajka iyo cumrada sanad walba meel kasta ha marayee wuu soo xaji jiray oo wuu soo cumraysan jiray Saciid ibnu Jubayr cibaado badanna uu ahaa zaahida imaamkiisu weyn markii dambe waxa helay ninka la yiraahdo Xajaaj ayaa dhab soo siiyay wuxuu doondoonaba muddo dheer kadib waa ragga uu ku qaatuma xumaystay Xajaaj uu iska dayn karay wax dhiba kuma hayn in caalima aqoonyahana hubsida nin iska tagay uu dayn karay laakiin waa ka argoos uu soo qabtay markii uu soo qabtay ayaa uu umana sheegtay wuxuu yiri soo raggii culimada ahaan wax siin jiray ma lahayn soo ka kuumaan saban wax badan buu akhriyay intaas way jirtaa maxaa kugu kalifay inaad kacdoonkan ka qayb gasho wallahi si kastaba ahaata laakiin waxaan ka mid ahaa buu raggii taageeray ibnu Ash'af raggii taageeray baan ka mid ahaa markuu arkay inuu dilayo waxba ma sii barbariyeen isagu waxba muu bariyin laakiin wuxuu isku dayay inuu taariikh wanaagsan ka tago oo ninka hadalka iskaga caabiyo maxkamadiis meeshiisii uu dadka ku leyn jiray buu soo joojiyay kursi dheer buu qaadanayaa 100 seefood buu hareerihiisa ka lulayaa kibir badan buu muujinayaa wuxuu ku yiri masmuk maxaa lagu yiraahdaa waxa la yiraahdaa buu Saciid ibnu Jubayr ayaa la yiraahdaa Xajaaj ba hadlay waxa uu yiri anta Shaqiy ibnu Kusayr magacaaga saasa la yiraahdaa magaciisii buu bedelay Saciidkiina Shaqi buu bedelay Jubayrkiina Kusayr ama Kasiir ayuu bedelay kii guul darada badnaay jabnaa ayaa tahay way macnaha Saciid ba markaa ku yiri bal ummi kaanat a'lama bismi mink adeer hooyaday ba ka taqaana magacayga magacay hooyaday bixisay waa kaad sheegtay maaha Saciid ninkii la oran jiray Xajaaj baa wuxuu yiri shaqiita ant wa shaqiyat ummuk hooyaday aduguba wax guul daraystay baa tiinooyinka ku dhacday isaguna wuxuu yiri al-ghaybu ya'lamuhu Allah adeer waxa maqan ilaahay baa yaqaana ka shaqiga ah iyo ka Saciidka ah waa qaybo ilaahay baa yaqaana waxa uu yiri la ubadilannaka bidunya naaran talada wallayna adduunyada kaaga dhigi doonta naar hol caysan ku galin doonaa buu adduunka Saciid barka wuxuu yiri law calimtu anna dhalika biyadika la takhadtuka ilaaha haddaan ogaan lahaa inaad wax cadaabto ilaah baan ka dhigan lahaa
laakiin ilaahay un baa wax caabuda anigu ilaahay baan caabudaa ilaahay baa wax cadaaba dhinac kale uu bedelo wuxuu yidhi famaa qawluka fii muxamed محمد بن عبد الله محادو آمين سنت هذا نيك الشيخ أبو عين كاكولي وحول النبي الرحمة وإمام الهدى ونبينا حريستا يهانونك حجاج بهد لو يحول فما قولك في علي في النار أم في الجنة علي ندى وكي عايش لمركا حجاج يا آل بيتك مركا وحول محاد كآمين سنت هاي علي من إنه النار كتشرا مساء تشنو سعيد باوحول لو دخلتها فرأيت أهلها لعرفت هدان جنية النار قلي لها دوان كصور رمي لا وحا كتشره جنية النار ديرنين قال يا صايا قيت يميه واتشكارون ولا استشكاري ولا شروفة يا ماشي حجاج باوحد فما قولك في الخلفاء رقي ملاحظة هاي كدن بي محاد كامي سنت سعيد باوحد لست عليهم بوكيل ملقي لها ودرايا نقو ميه حسابته ما هي بوريه قرال كودنا ما هي حجاج باوحد فأيهم عجبوا إليك دواني كانوا ديلك وسو تاغبوا وحنا سؤالا ويدينيا عناديه كبر فأيهم عجبوا إليك كيباد لا دحسنتahay ama jeceshahay nimanka madaxda ah ee reer bani umayya iyo khulafadii ka horeysay ya jecesh qaal wuxuu ardaahum li khaliqi ka ilaahi saraali galiyo man raali ka ah حجاج بهدنا wuxuu فأيهم أرضى للخالق وكيبا إلهي رالي قليه قال علم ذلك عند الله يتا إلهي با يقانب أنا ودم غلوبته ودان كتشره قال وحولي أنت أبيت أن تصدقني أو أن تصدقني وادي دايبور إن أدمر قرآن عميتي لهذا صوماه كنا بيانين مايو كنا الرومين مايبو مركا وحولي دافية وهالكا كسو دلع كل كي ليلها الدلابور وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلهي بان وجهي وجهي وقبلة قابلة كل كاسول وجهه لغير القبلة قبلة شيء كتشهدية وحقاك لو تشهدية الكاساوح فأينما تولوا فثم وجه الله ماشي لأي تشهدية بوا وجه إلهي كاسول كبوها على وجه لولك أريد فوررية نالها نشيء كتشهدية الكاساوح منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لولك لفتي ساكين لغسوة صارية أسول إذبحوه أنك قورع كسوء الشهاتين دعانا وكسوق بكبايا وحوري اللهم لا تسلط أحدا بعدي إلهي وننكا قفي قدام بيها كسلد قفك قدام بيو دلا إله أنك عن نقضه دعادي لا إلهي هريك أقبلي كوبية طبانكي رمضان أيا تاريخ المركة هاي هجري وشانية السقاش كوبية طبانكي رمضان أيو دلي سعيد بن جبير isaguna 10kii dambe Ramadaan buu dhintay ninkii u dambeeyay dilay buu ahaa waxa ku dhacay cudurka kansarka la yiraahdo Xajaaj bin Yuusuf marka wuxuu u qaylin jiray sida dibigu u qayliyo kale khooq waa kan dibigu yiraahdo saasoo kale u qaylinaya Xajaaj qola ku arkay markii dambe naar waxa lagu arkay riya lagu arko ilaahay muxuu kugu sameeyay baalin wuxuu igu sameeyay buuri waxa la iga raaco igu daraan dilkii Xajaaj Saciid ibn Jubayr waay markuu sii dhimanayay ninkaas Xajaaj bin Yuusuf la yiraahdaa wuxuu ilaahay dambi dhaaf baan ku weydiisanayaa dadkuna waxay sheegayaan in aanadii dhaafi karaynin ogow ilaahay dambi dhaafkaaga ayaan rajaynayaa laakiin dadku waxay sheegayaan inaanad awood u lahayn adii dambi dhaafto marka dadka inaad beeniso oo taadaadii rumaysaaban sugayaa buu leeyahay Umar ibn Abdul Aziz oo ay dabcan dawladii reer Bani Umayya uu kamid ahaa laakiin aynu ka soo sheekeynay cadaaladiisa ragii canaanan jiray buu kamid ahaa Xajaaj bin Yuusuf barigi dambe ee oran jiray nin daalima buu ahaa laba arrimood baan laakiin ninka isaga ku kamtaabuuri ama aan idhaahdaa buu ku wanaagsanaa kelmadda markuu sii dhimanayay uu rajaha muujiyay ilaahay rajihiisa inuu ilaahay rajaynayo uu muujiyay iyo quraanka wuxuu u qabtay quraanka uu jeclaa
qur'aankana aad buu uga shaqeeyey oo ninkii dhibcahan ku sameeyey buu ahaa qur'aanka dhibcaha Soomaaliya qur'aanku markii hore dhibcana muu lahayn xarakana muu lahayn xisbiyadan isaga sameeyey dadka xufaada ana aad buu jeclaa qur'aankana uu yaqaan oo akhri jiray ninkaas labada arrimood marka laga tago waxa kale oo aad iyo aad awood badan u saaray uu baabiyay nimanka khawaarij la oran jiray ninka ugu adag ee hilifaa u qaaday buu gaal iyo khawaarij markaas arrimaha dhowrka ah ayaa aan ka soo reebi karaa ibn Kathir oo taariikhda ka waramaya ya Imam Dhahabi rahimahullah mid waliba markuu taariikhdiisa ka sheekaynayo wuxuu leeyahay xoogaa xasanaada uu sameeyay laakiin badweyn dunuuba bartanka ugu jira ashahaadana uu ku dhintay dulmigiisii waa qirayna inuu ahlu naar yahayna ma garan karnay arrinkiisa ilaahay baa yaqaan hadduu ka dhaafayo iyo haddii daalim buu ahaa muslina weeye macnaha nin muslina oo ashahaado ku dhinto daalina oo intaasoo muslina laayay dilkii ugu badnaa ee nin muslimiin dilo ninkii ugu badnaa caalamka soo maru ahaa marka waxa loo yaqaanay al-mubiir al-dhalim in daalimuhu mubiir oo dhulbiis ayaa loo yaqaan marka arrintan culimadu ay ka waramayaan dagaalka isaga dadka uu ku laayay waxa loo yaqaanay yawmul jamaajim maalinkii madaxyada jumjumadu waa madaxyadii baa meel walba ku batay madaxii dadka muslimiinta dhakooyinkii ayaa meel walba ku batay waxyaabaha laga faa'iideysanaya qisadan hadaynu dib ugu soo noqono waxa kamid ah arrimaha siyaasiga ah marka ay noqoto waxa fitnada la yiraahdaa ama ninkan meesha haysto lagu kacaa kicitaankaasi inuu marka hore dadka u sahlan yahay laakiin mustaqbalkiisa dambe uu yahay mid laga murugoodo sidaa daraadeed baa raggii bariga ku kacay ee culimada u badnaa Xajaaj iyo dawladii reer Bani Umayya way ka murugoodeen markii dambe markay arkeen sida uga dartay iyo sida arrintu u xumaatay ay faraha uga baxday waxa laga faa'iideysanayaa bahasha fitnada la yiraahdo waxa la fitnadu daaman la qaabtaabay leedahay daba la qabta ma leh daamanku waa maxay balaaya fitnadu ka hortagun bay leedahay laakiin haday soo butaacdo daba la qabta ma la way kugu muruxsanaysa way ku gali marka haddii ay fitnadu bilaabanto ta'ummu saaliha wa daalih cid walba way gaari intaasoo aqoonyahana culimaa fuqaha ayay galaaftay dagaalka isaga ah waa ka ilaahay wattaqu fitnatan la tusiibanna alladhina zalamu minkum khaassa waxa iska ilaalisaan fitno iyo balaayo aan ku dhacaynin oo kaliya kuwa dulmiga sameeyay laakiin dadkoo dhan wada gaaraysa iska ilaaliya buu ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waa in la fikiraa oo la yiraahdaa ninkan hadii lagu kaco maxaa ka imanaya in lagu kaco meeya xaq tahay horta hadii uu xaqba u leeyahay in isbedel lagu sameeyo sidee isbedel lagu sameyn kara hadii la isbedel ku sameeyo ummaddu ma isku raacaysa mise isaga dadka isku laba rogayo wixii uu sameyn jiray wax ka daran sameynaya oo siyaasadda shariicada waxa la isticmaalo waxa la yiraahdo al-muwazanatu bayna al-masalih wal-mafasid dibkiya dheefta la isu miisaama waxa kale oo la isu miisaama labada mafsado hadduu ninkani fasaad sameynayo fasaadka weyn ma dhalanaya ayaa la yiraahdaa marka yurtakabu bi akhafil mafsadatayn bijtinabi akbarihima laba dhibaato tayar baa la xamili iyadoo taweyn laga cararayo haddii dulmi laga cararayo iyo waxbuu qaatay iyo waxbuu kharibay oo haddii dagaal lagu qaadana meeshuba ay kala kacayso oo dalkuba baaba'ayo markaana waa loo kaadin halkaas laga eegaya waxyaabaha laga faa'iideysanayo waxa kamida shaygan la yiraahdo muslimka marka dhibaatadaasi ay ka dhaxdhacdo shisheeyaha ka faa'iideysta shisheeyaha cadawga shisheeyaha ka faa'iideysta shisheeyuhu inuu kugu soo duulo uu kula dagaalamo wuxuu ka jecel yahay inaad adigu kala jabto oo aad iskaraacdo isaguna halkan uu nagtaada fadhiyo kugu qoslo Soomaa taasuu ka jecel yahay Soomaalidu waxay yiraahdaan la fageel iyaga la isku garaaca la fageel mata jabin kari weyda laftan qaad dheero
tan kale ku jari mar kale waxay dhahan gudin yahay imaad goyseena geed baa yidhi baa geed gudin yahay imaad goyseena barkayda kugu jira gudintu waa tan qalloocana saasoo ah marka hadiya jeer waa idinka arkayoo geed baa dabada laga geliyaa geedka maxaa la yiraahdaa daab baa la yiraahdaa daab gudimeed daab baa la soo qaadaya saaw qalloocan mindidii birta haydna afka la gelinaya geedkii baa lagu garaacayaa marka geed baa hadlay wuxuu yiri imaad goyseene qayb geed kale kugu jira marka maanta gaaladu muslimkay soo ciyaarsiiyaan mid baa lagu dhufanayaa kana hubka la siinayaa kolba kana oranayaan annaga kula jirno ka celinayna marka taana waa in lagu xisaabtamo fitnada had iyo jeer muslimka dhaxmarta inay ka faa'iideysanayaan shayunu ka faa'iideysto ku soo dhax galaana waa shaytaan waligiiba ka tagi maayo waxa halkan aynu ka faa'iideysanaynaa dadka mudan ee iskaba dhowrsoon ee iska wanaagsan ee iska fiican ummaduna u hanweynti diintooda iyo cibaadadooda iyo cilmigooda iyo sumcaddooda loo hanweeyay mararka qaarkood inay ku simbiriraxan karaan siyaasado qalloocan ayaa laga faa'iideysanaya halkan oo waaqicu si qalloocan isu tusi karo ama ay sabri kari waayaan ama ay caradu ku badanayso sidaa daraaddeed ayaa waxa culimadan faraha badan aynu soo sheegayna lagu kaxaystay waxa lagu kaxaystay ninkan aynu iska fujinayna xajaaj la yiraahdo maanta xajaaj la dagaalankiisa miyuu muran ka jira miyaad ka shakisantay inuu xaq yahay taasaa dad badan lagu kaxay ninka dhiiga cabaya aan iska fujinno dee may odhanin raggan la dagaalan war ninku keligii maahee dee khilaafad baa dhisan dowlad islaamaa dhisan way awood badan tahay muslimkii iskuma iyadii baa la isku raacay marka cidi khilaaf baa jiro laakiin dad la doortay bay ahaayeen marka sidan ku soo baxay ama aan idhaahnee dee isbeddelkan boqortooyadan ku soo baxay dee iyagii baa si caama loogu wada socdaa dad badan habadii danaad qalloocba ha sameeyeen waxaa lama eegin sidaa daraaddeed ba axmed ibnu xambal raximahullah wakhtigiisii waa la xidhay waa la garaacay 4 calancalood baa laga garaaci jiray muddo dheer buu xidhnaa madaxweynayaal baa isu beddelay wax kale laguma xidhaynine waxa ay ummadii wakhtigaa joogtay dadkii madaxda u ahaa dadkii madaxda wakhtiga ahaa ayaa waxay lahaayeen qur'aanku waa makhluuq nimankii muctasiladii baa fikirkoodii liqsiiyey isagii rag lamid oo culimana waxay lahaayeen qur'aanku waa kalaamkii ilaahay ha odhan sidii baa lagu garaacay marka dadka qaarkood baa odhan jiray axmedow dee aan kuu hiilinoo nimanka la dagaalanno war way ka daraysaa iska daaya buu jir waryaale war way ka daraysaa anigii dhow qof bay taagan tahay wallaahi in haraggeeda lagu celin kari waayo oo meel laga soo qabta la waayo iska daaya buu odhan jiray munkarka xumaanta waa la diidayaa dadka mas-uuliyiinta ah oo lagu adeeci maayo laakiin xumaantu dee darajooyin bay leedahay lagu diido waa kaa nebigu mid qalbiga ah iyo mid qowlka ah iyo mid ficilka ah buu tilmaamaya marka ninkii awooddaba hayay hadduu xumaan samaynayo haddaad qowl ku diidi kartana waad ku diidi haddii aad qalbiga ka dhacdana waad ka nici ood qowlkaba lagu diido laakiin qadiyadda ah gacanqaadku dee waxaasaa ka soo baxay arrinkaa aadka u adkaaday waxaa kaloo xusid mudan markay wax dhacaan in culimmada had iyo jeer iyo aqoon-yahanka wax la weydiiyo dadka culimmada aqoon-yahanka iyagu dee arrimaha si wanaagsan bay u miisaami karayaan laakiin dadku hadday isqanciyaan dhibkeeday leedahay alla wuxuu uhi waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna minhu marka cabsi iyo amni xumo timaado nimankan munaafiqiintii warka way faafiyaan ma ay u celiyaan dadka aqoonta leh ee ulil amarka ah ee ahlulcilmigu ka mid yihiin kuwaasaa garan lahaa arrimaha sida loo miisaamo waxa la sheegaya iyo waxa aan la sheegay marka halkaa waxaynu ku soo ururinaynaa
lama laha dulmiga hala saaciida madaxda dulmigooda waa laga bari noqonaya laakiin markay noqoto in isbedel la sameeyo isbedelkaasi waa inaanu fitna keenayn wixii laga cabanayo waa inaanu ka darayn oo waxa la yidhi ka door waa inaanay ka dardhalin adigoo isla ka ray oo waxa jira mushkiladda jirta ka ray wax ka daran waa inaanay keenayn